fadhigan ay golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari. Golaha ayaa lagu waday in maalmihii la soo dhaafay looga doodo xeer hoosaadka aqalka, balse gudoonka ayaa golaha fasax galiyay iyadoo sabab looga dhigay la qaybsiga shacabka Soomaaliyeed dhimashadii dhaawacii ka soo gaaray weerarkii naxariis darrada ahaa ee maleeshiyada shabaab ay maalnimadii Jimcaha bishana ku beegneed 9 November ku qaadeen hotel Saxaafi iyo agaarka isgooska lambar 4. Fadhiga guddiga joogtada golaha aqalka sare ayaa looga hadlay diyaarinta kulamada ka doodista xeer hoosaadka aqalka sida warbaahintu u sheegay Senator Cabdikaafi Macalin Xasan habdhooraha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya. ajandaha wuxuu ahaa guddiga joogtada oo ka hadlayay diyaarintii ajandihii kulanka toddobaad ee golaha aqalka sare. waxaanu maanta ka doodnay diyaarinta kulanka toddobaad ayadoo aanu ku saabsan tahay hawshayada haddana waxyaalo badan oo dib u eegistii xeer hoosaadkii kulli waxyaalo badanna ay dib nooga dhaceen. waxaa soo socdoo kale aan rabnaa insha Allah inaan keeno arbacada soo socota iyo sida muxuu ahaa guddigii musuqmaasuqa marka howlahaas kulli ayaan isku diyaarinaynay. shirkan wuxuu noogu dhammaaday waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha koowaad Abshir Buqaari. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.